kuwa adduunyada maanta caanka ka ah oo aad garanayso oo kamid ah xidigaha shirkadda filimada Bollywood-ka Hindiya waxay dhamaantood magacyo kale u sameysteen markii ay isku dayeen in ay ku soo biiraan xirfadda jilitaanka ama aysan soo muuqanin filmadoodii ugu horeeyay. sababta ay u qaateen go'aankaas waa magacyadooda dhabta ah oo aysan ku wanaagsanayn caanimadii ay raadinayeen. warma isla soconaa ilmaadeerayaal waxa idinla wadaagaya oo idinla socodsiinaya liiska jilayaal ka tirsan Bollywood-ka oo bedelay magacyadooda ka hor inta aysan xidigaha waaweyn noqonin. atoorahan caanka ah oo ay u taqaano Soomaalidu Cali Dheere ayaa samaystay magac weyn oo aan kiisa runta ahayn, laakiin markii uu Bollywood-ka ku galay Amitabh Bachchan wuxuu noqday shakhsi caalamka caanka ah oo lagu ciseeyo magaciisa aan xaqiiqda ahayn. 80 sano ka hor markii uu dhashay waxaa loo bixiyay magaciisa runta ah Inqilab, aabihiisna waa Sarfastafa, kaas oo loogu yeeri jiray intii uusan atooraha caanka ah noqonin ka hor. micnaha ninkan Cali Dheere ah intii u dhaxaysay 1970kii ilaa 1980kii waxa uu ahaan jiray jilaaga ugu saameynta badan shirkadda Bollywood-ka. Amitabh Bachchan mar wuxuu xitaa ku biiray siyaasadda ka hor inta uusan dib ugu soo laaban xirfadiisa. ninkan Akshay Kumar ah oo Soomaalidu ay u garan og yihiin magaca Mr. Bond, kaasoo uu ku matalayay mid ka mid ah filimadiisii ugu horeeyay oo uu soo bandhigay. laakiin markii uu bilaabay xirfadan oo uu ku biiray jilayaasha maanta ugu saameynta badan Bollywood-ka waxa uu ka tanaasulay magaciisa dhabta ahaa ee la oran jiray Rajeev Hari Om Bhatai. wardaninkan magacii bugtahay ee uu samaystay maanta waxa uu ku jiraa liiska 10ka jilaa ee ugu horeeya adduunka ee lacagta ugu badan ku sameeya filimaanta. Salman Khan baad u taqaanaa, balse magaciisa ma aha kiisii dhabta ahaa ee uu ku soo barbaaray. magaciisa runta ah ee la oran jiray inta uusan xirfadda filimada ku soo biirin waa Abdulrashid Salim Salman Khan. markii uu xidiga noqday wuxuu magaciisa ku soo koobay qaybta ugu dambaysa ee magaca awowihii, kaas ayaana aad ugu caanbaxay. hadda waa atooraha lagu tilmaamo in uu ka mid yahay shakhsiyaadka gacanta ku haya Bollywood-ka oo ay taladu ka goodo. dad fara ku tiris ah ayaa og in magaca uu atoorahan ku naaloonayo uusan ahayn kiisa saxda ahaa ee uu lahaan jiray intii uusan ku soo biirin filimada. marka hore waxa la oran jiray Hrithik Nagrat, laakiin waxa uu bedelay Hrithik Roshan. dabcan waxay ujeedadiisu ahayd inuusan magaciisa runta ah aanu ku wanaagsanin inta dambe in ay dadku qabtaan ama carabkoodu uu qaban karo, balse magaca kan uu raaciyay. inkastoo Bollywood-ka ku soo biiray sanadkii 2000 wuxuu ka magac weyn yahay oo ka magac dheer yahay kuwa ku soo jiray sanado fara badan ilaa 90meeyadii. haatanna waa actor weyn oo magac weyn ku leh Bollywood-ka dhexdiisa, sumcad badanna ka shaqaystay dadka Hindiya iyo caalamkaba. atrishadan quruxda badan ee muddo dheer soo haysatay Bollywood-ka waxa ay lahayd magac kale inta aysan caan bixin. waxaa la oran jiray Bhanureka Ganeshan. magacaas wuxuu isu bedelay Rekha amba Soomaalidu u taqaano Rekha Dheere, ilaa heer dadka inta badan aysan aqoonin xitaa magaca Rekha wax loogu daro. Rekha markii ay dhalinyarada ahayd waxaa raggii ay haasawaha la soo samaysay kamid ahaa ra'iisul wasaarihii dalka Pakistan soo maray ee Imran Khan oo xilligaas ahaan jiray isaguna xidig ciyaartooy caan ahaa. waxaa la sheegaa xitaa Rekha iyo Imran Khan in ay isla gaareen heer guur oo markii dambe intiyaanay iskuulsan kala dhaqaaqeen. Shilpa Shetty waa tirsha caanka ah Bollywood-ka oo looga dambeeyo dhinaca qoobka ciyaarka. filimo badan ayayna ka soo muuqatay ilaa markii ay xidigta weyn noqotay. laakiin weligaa ma istiri magaceedii runta ahaa ma ahan kan ee magaceeda runta ah Balraadi. horey waxaa loo oran jiray atrishada tan Ashwini Shetty, balse waxa ay bedeshay magaceeda intii ay ku dhex jirtay filimada oo ay la baxday Shilpa Shetty. dabcan magaciisu wuxuu u qurux badnaaday sida uu jirkiisa u dhisay ee u qurux badnaysiyay, laakiin ma aha kii saxda ahaa. Tiger Sharaf waxaa markii hore la oran jiray Joy Hamad Sharaf. hadda waa 30 sano jir, wuxuuna ka mid yahay jilayaasha ugu saameynta iyo mustaqbalka fiican ee Bollywood-ka hadda jooga. magacaygu waa Bashiir Umar Cali. waa mahadsantiin.